soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan idin wadaa musalsalkii ugu shidnaa ee 2025 soo baxay dhacdooyinkiisana waa kuwa naxdin iyo yaab wato ka hor inta aanan bilaabinne waxa ka codsanayaa shuux xusmad leh inaad fiidiyowga like saartid qof walbana subscribe ha saaro YouTube-ka filimka wuxuu ku bilaabanayaa atooran asagoo mooto saaran wuxuuna fiirinayaa qof wajigiisa aan si caadi ah u muuqanin wuxuu naftiisa ku leeyahay dhammaan waxa rabaa waa in adiga ku muujiyo qofka dhabta adiga aad tahay hay u soo celin hadallada aan waxba tirin waxa arkaysaa waxaan sameyn doono waana ku soo afjari doonaa ayuu dhahayaa markaas kadib waxaan ula celinayaa atooraha noloshiisa atooraha magaciisa waxaa la dhahaa June waxayna shaqadiisa ay tahay delivery waa nin aad u shaqo badan oo daacad ah June wuxuu ku laabanayaa maqaayadii uu ka shaqeynayay halkaas wuxuu ku arkayaa gabar taajir ah oo ku dhacaysa wiil delivery waxayna bilaabaysaa in aflagaadiiso ay caayso wiilkaasna asagoo garanaya sababtoo ah way isla shaqeeyaan gabadhu waxay bilaabaysaa inay raacdo gaariga saaxiibkeeda kadib waxay bilaabaysaa inay cuntada ka tuurto June arrintaas wuu ka xanaaqayaa kadib wuxuu qaadanayaa cuntidiisa iyo cuntadii wuxuuna bursanayaa gaariga wadooyin dheer ay ka bixeen kadib wuxuu bilaabayaa inuu soo hor istaago cuntadii ayuuna ugu tuurayaa gaariga gudihiisa wuxuu dhahayaa bixi lacagta dadka meesha jooganaya waxay bilaabayaan inay fiiriyaan xaaladda sidaas darteedna gabadhu waxay bilaabaysaa si u ceewoobin inay ku qasabto saaxiibkeeda inuu lacagta bixiyo halkaas waxaa nooga muuqato June inuu yahay qof shaqo badan isla markaana aqli badan kadib wuxuu la kulmayaa walaalkiisa Jean oo ka soo baxay akademiyada waxayna bilaabayaan inay labadooda cunto wada cunaan Jean waxa ogaanaynaa inuu imtixaanka iskuulka gal rabo June wuxuu walaalkiisa siinayaa talo inuu waxbarashada xoog saaro June wuxuu iska diyaarsanayaa dukaanka ubaxyada iyo geedo qurxinta wuxuuna rabaa inuu bilaabo nolol wanaagsan markuu ka tagana June wuxuu arkayaa in akoonkiisa lacag badan loogu soo shubay walaalkiisana aad ayuu u jeclaa June wuxuu diyaarinayaa dukaanka wuxuu ku xiranayaa nolol qurux badan asxaabtiisa saaxiibtiisa Suji asiga ayayna caawinayeen habeenkaas Suji waxay bilaabaysaa in asaga la joogto ee waqti la qaadato subaxdii markii la gaarane wuxuu sameynayaa quraac kadib wuxuu baraan u soo bixinayaa qashinka xal isticmaalayeen kadib wuxuu bilaabayaa inuu soo qaado delivery markuu delivery geeyay wuxuu arkayaa geed caleemihiisa ay qalaleen wuxuuna u wareejinayaa dhanka qoraxda wuxuuna ugu tagayaa waraaqad ay ku qoran tahay geedka qorax buu u baahan yahay ee hadhigin meel hoos ah markuu jaranjarada ka degayna wuxuu arkayaa haweeney duq ah oo wadato boorso culus wuxuuna ka caawinayaa inuu laamiga goosiyo habeenkiina wuxuu bilaabayaa inuu cunto cuno asagoo cuntada isku cunayana wuxuu arkayaa taleefon jarjiin gadaashiisa ka dhacayo taleefonka markuu qabtana naag ayaa la hadlaysa waxayna ku leedahay taleefonka halka ka heshay asigana meesha uu ka helay ayuu sheegayaa ayadan waxay leedahay fadlan ii keen lacag ayaa ku siinayaa June markii hore wuu diidayaa laakiin markii lacag u sheegtay wuu aqbalayaa meeshii uu tilmaamaysana waa meel cidla gabadhu waxay u sheegaysaa taleefonka inuu u dhigo sanduuqa ku jira tuneelka lacagtana halkaas ayay ku jirtaa ay leedahay June sidaas ayuu sameynayaa markuu bixi rabana wuxuu arkayaa baabuur weyn nalkiisa lagu soo haayo kadib uu iska soo baxayaa kadib waxaa arkaynaa June isuu dukaankiisa fadhiyo oo sawirka hooyihiisa la hadlaayo isaga oo leh inuu Jean ka dhigi doono nin guuleystay habeenkii markii la gaaranay roob xoogan ay imaanayo June wuxuu soo gelinayaa geedihiisa gudaha wuxuuna sawir u dirayaa Suji markaas albaabkiisa si xoogan loo soo garaacayaa markuu furana wuxuu arkayaa booliis aad u badan dib waxay bilaabayaan in asaga qabtaan ay garaacaan warbaahintan waxay ku eedeynayaan inuu yahay ninka gabadha kufsaday kadib jarjaray Suji wili wax ma oga waxayna u diraysaa fariimo asxaabtiisa ayaa ku soo booqanayso xabsiga waxayna u sheegayaan xogtiisa shakhsiga ah in la faafiyay dariskiisana ee darbigiisa ay ku qorayeen gacan ku dhiiglaha hala dilo June isbedela wuxuuna bilaabayaa inuu jah wareero Suji iyo walaalkiisna waxay bilaabayaan inuu qabtaan qareen Suji ayaa xabsiga ku soo booqanayso kadib markuu arkana wuu isku oonayaa wuxuuna leeyahay inuu meeshan xaq dara ah ugu xiranahay ayaan waxay ku leedahay hawlweyni wili waa ku garab taaganahay qareenku wuxuu dalbanayaa cadeemo maalintii dambiga dhacay waxay soo aruurinayaan dhammaan wadooyinkii uu maray qareenkii wuxuu leeyahay haddii asaas tahay maxkamadda waxay ogolaan doontaa inay sii deyso laakiin maxkamadda dacwad oogayaashu waxay bilaabayaan inay soo bandhigaan cadeemooyin waaweyn maalintuu dilka dhacayay June cunto ayuu u geenayay ismaa ay degneed gabadha 7 daqiiqo ayuuna ku maqnaa boorsadii uu qaadayay duqda waa isla boorsadii lagu qaaday gabadha meedkeeda taleefonkii dhibanahan wuxuu ahaa kii gacantiisa ku jiray raadka taleefonka wuxuu la mid ahaa dhaqdhaqaaqiisa DNA June ayaa laga helayaa gabadha jirkeeda Sujiina waxay arkaysaa jijinta labadooda u xirnaa jirtay inay ku jirto sawirka dambiga natiijada sheebaarkan waxay cadeynaysaa in dhibanaha la kufsaday inta la dilin ka hor DNA-gu wuxuu ahaa kan June burura wuxuuna qeylinayaa wuxuuna dhahayaa xaqdara ayaa lagu heystaa waxa aniga ma sameynin Sujiina waxay ku dhahaysaa waxaan aaminsanahay inaan adiga dilka geysanin laakiin waxaa laga yaabaa inay jiraan wax aadina ogeyn haddii aad muujiso inaad ka qoomamayso waxaa laga yaabaa inay xukunka ku fududeeyaan qareenkiina meesha ayuu ugu tagayaa Sujiina sidoo kale way ka tegaysaa jijintiisana miiska ayuu u saaraysaa June waxaa loo wareejinayaa xabsi halis badan halkaasna Yo ayaa hogaamiye ka ah maxaabiista wuuna necab yahay kuwa lagu soo eedeeyo dambiga kufsiga June waa la qabanayaa waana la dirdilayaa maalin kalena waxa uu maanayo qareenkii Kim wuxuuna leeyahay walaalka Jean wuu isdilay June waxa ku dhacayo niyad jab xoogan wuxuuna isku dayayaa inuu isdilo marar badan ninka kaniisada ka shaqeynaya oo la yiraahdo
ayaa la hadlaya oo ka caawinaya inuu soo kabto. June wuxuu bilaabayaa inuu jimicsi sameeyo iyo inuu wax barto, wuxuuna baranayaa xirfado iyo dagaalka iyo si naftiisa u difaaci lahaa. 5 sano kadib June wuxuu noqonayaa nin cusub. Dhanka kale Kim wuxuu si qarsoodi ah ula shaqeynayay dad awood leh oo nolosha dadka bedelo, waxayna sameynayaan qiyaamo si loo burburiyo qof dhan farxadiisa. June wuxuu helayaa jijintii, wuxuuna ogaanayaa inuu Kim ahaa ninkii qorsheeyay wax walba dhimashada walaalkiisa. markuu Kim soo booqdane June wuxuu weydiinayaa inuu walaalkiis asaga dilay. Kimna wuxuu ku dhahayaa ha aniga ayaa dilay. June wuxuu ku dhaaranayaa inuu dili doono. Kimna wuu ku qoslayaa wuxuuna ku leeyahay adiga oo xiran sidee wax u qaban kartaa haddii aad rabto runta qor wasiyad oo isku dil, taasi waxay furin kartaa baaritaan cusub. Markaas June wuxuu aadaa kaniisadda, wuxuuna soo saaranayaa misbaar, gacantiisana dhiig ayaa ka socday. filimkan waxaa ka fahmi karnaa qof kasta wuxuu leeyahay meel uu ka jilcan yahay, xitaa kuwa xoogga leh. haddii meeshaas laga ogaado waxaa suurtagal ah in laga isticmaalo meeshaas. qofka aad siiso kalsoonida si taxadar leh u dooro. mararka qaar dadka kuu dhow oo kuu dhoola cadeynayo waa kuwa kuu keeni doono dhibaatooyinka ugu badan. haddii aad dareento in noloshaada si tartiib ah u qasban tahay adigoo aan garan karin sababta, mararka qaar waxay ka iman kartaa qof inoo dhow. sheekadan waxay kusoo dhammaanaysaa adiga oo fahmay in dagaalka ugu weyn uusan ahayn jirka lagu dagaalamo. mararka qaar waa dagaal maskax iyo qalbi ah. waxaan ka baranaynaa in nafteena aan ilaalino, kalsoonida aan siino qofka xaq u leh. haddii aan dareen in qof maskaxdeena ku ciyaaraya aan ka baxno, xitaa haddii ay nagu adag tahay. noloshu waa khatar mar walbo, laakiin xulashada dadka aan nafta u furno waa tan ugu khatarta badan. halkaas ayay ku dhammaanaysaa. adigana waxaa ka codsanayaa mar kale iyo mar saddexaad inaad YouTube-keena subscribe ay saartid. waana mahadsan tahay.